السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرا بصور وهذا مركز كنا كنا فهمت ما أنت عشر كانوا يحكوا سابسين هو ويب سايت سيد الله سميه ويب سايت أما الله سميه إن بلوجر إن طبعا هذه نكير هذا الله ويب سايت هو محي ويب سايتكم ويب سايت هو حويه و إن قيب كمده إن بيجيكا أما سورسكا لغا استعمال إنترنتك waxna la soo geliyo waxna lagala baxo input iyo output labadaba kaas oo aad ku sharaxayso cashar soo dhigayso in dad aad wax ugu faa'iideynayso maxay ahayd wax aad adigu ganacsi aad ku soo bandhigayso iyo waxyaabo far badan lamida hadaba casharkeena ayaan iska bilaabanaa soo dhawaada mar kale ee kanaalkeena Fantage marka aad browserka soo furto waxa aad halkan sare ku qoraysaa blogger ayaad ku qoraysaa blogger kadib marka aad blogger ku qorto waxa muhiim ah in aad leedahay gmail kadib marka aad gmail leedahay waxa ku sahlanaysa in aad sameyso blogger kadib waxaad ku dhufanaysaa blogger create blogger ayaad ku dhufanaysaa create blogger marka aad ku dhufato wuxuu ku gudbinayaa wuxuu ku oranayaa gmail kaga geli kadibna gmail kaga ayaad gelinaysaa kadibna magacii baad account-kii waxaad create garanaysaa website-ka ee halka ka create garanaysaa kadib sida tan oo kale ay ku soo baxaya hadii aad blog leedahay inagu qaybta waxaan ku soo qaadanaa blogger waxa jira maxay haytay qaabab kale oo website loo sameeyo jeeda laakiin inagu waxaan qaadanaa blogger waxa jira kale WordPress iyo qaar kale farbadan marka create blog ayaad ku dhufanaysaa create your blog kadib sidaan ay ku soo dhigay gmail ka geli ayaan ona gmail marka ayaan doonanaa gmail keena ayaan gashanaa markaas gmail ka must waa inaad gasho marka hore markaas gmail ka ayaad gelinaysaa kadibna waxaan sameynayaa password ka gelino kadibna enter ayaan taabanaa marka enter taabano waxaan isku sameynaa gmail inuu geliyo blogger-ka si automatic marka uu blogger-ka u galo gmail-ka kadibna wuxuu ku oranayaa create your blog sidaas ayuu inagu sameeyay marka blog-keena ayaan ku sameynaa waxyaabo fara badan ayaan ka bedelanaa kadib labadan qaab ayuu ku soo dhigayaa marka labadan qaab ku soo dhigo waxaad sameynaysaa in aad create google profile ku dhufato oo yacni profile ka soo dhigto marka hore laakiin waqti badan inaan uga qaadan create ayaan oranaa blog-keena inuu create gare kadib halka waxa aad gelinaysaa title-ka spray name-ka marka magaca uu soo baxayo ee gelinaysaa halka tusaale ahaan waxaan gelinaynaa magac blog-keena aynu ula baxno oo spray name-ka ah waxaan oranaa tusaale ahaanba Maxamed ayaan oranaa kadibna continue ayaan oranaa continue marka aynu niraahno continue markana qaabkan ayuu inoo soo baxayaa kadib markuu qaabkan ku soo baxo waxaad sameynaysaa inaad ku dhufato halkaas kadib waxaad oranaysaa new blog oo imika san blog-ki kuma dhamaystirna waxaad sameynaysaa inaad ku dhufato new blog kadibna aad halka magac title-ka aad geliso waxaan oranaa maxamedkii hore ayaan ka gelinaa kadib maxamedkii hore markaan gelino halkan waxaan gelinaa search halkan waxaan gelinaa tusaale ahaanba imika aan soo qaato halka blog-kayga aan ku tijaabiyo waxa lagu baarayo blog-ka marka doonayso tusaale ahaanba in aad blog baadho imika tusaale ahaan aan ku soo qaato tab cusub aan furayo marka blog-kayga ayaan halka ka baarayaa waxaan oranayaa alif qaad blogs
.blogspot.com ayaan odhanaya. magacaa lagu searchin garanaya halkaas blogga lagu searchin garanayo ayaa mastay in aad halkaa geliso. imankana waa bloggayga alifqaad ayaa la dhahdaa. markaas blogga searchinkiisa tusaale ahaanba haddii aad Facebook leedahay oo aad qof kale Facebookiisa searchin ku sameynayso magaciisa ayaad ku baadhaa halkaas searchinka. markaas halkan waxay ka turjumaysaa title-ka aynu halkan gelinayna waxay ka turjumaysaa searchinka aynu halkaa ku baadhnay imaka alifqaad.blogspot.com ayay ka turjumaysaa. kadib halkaa waxaad gelinaysaa waxa dadku ku baadhayo ama marka lagu baadho soo baxaya addresska bloggaaga. tusaale ahaan waxaynu bixinaa maxamed.blogspot.com kadibna waxaad ku dhufanaysaa create blog ayaad ku dhufanaysaa create blog. halkana waxaad tan ku dooran ayaa iska kadibna qaabkan kale ayuu noo soo baxayaa. imaka bloggeena sidaas ayuu ku samaysay wuu kuna dhammaystiran yahay. marka waxaynu sameynaynaa in aynu maxay ahayto halkan qaybtan maxaa ahayd dashboardka la yidhaahdo waxa waa halka muhiimka ee aad wax ka bedelayso akoonkaaga ama website-kaaga aad wax kaga soo darayso aad waxna kaga saarayso akoonka halkaad ka maamulayso. imaka haddaynu nidhaahno view blog markaan view blog idhaahdo wuu ina tusayaa bloggeeni ayuu ina tusayaa. maxamed blog ahaa waa kaas. imaka maxamed blog waa kan ma yaalaan waxaan dhahdaa waxa boosti waa no boosti. markaas waxaad soo dhigaysaa boostiyo video soo gelinaysaa sawirraa soo gelinaysaa waxaad ka bedelaysaa maxaan dhahdaa qaabkan waad ka bedelaysaa template-kan waad ka bedelaysaa. template-kan insha Allah waxaan kusoo qaadan doonaa casharka hore sida template-ka looga bedelo sida boosti loo soo geliyo iyo waxyaabo fara badan oo ka mid ah. markaas tusaale ahaan imika waa kan bloggeeni markaas wuxuu ku xiray emailkaagan ayaan ku xirnay. kadibna waxaad sameynaysaa haddii aad damacdo inaad settingska qayb wax ka bedesho settings ayaad ku dhufanaysaa. settings markaad ku dhufato waxaad gelaysaa basic ayaad gelaysaa basicgiisi. kadib waa kan halkan urlkiisu waa kan maxamed.blogspot.com kana waa title-aankii waxaan dhahdaa waa kaas bloggeeni. halkan waa stateskii maxaan dhahdaa markaas waa kan bloggi saas ayaan bloggi ku sameynay. insha Allah casharka xiga waxaan ku soo qaadanaa habka looga bedelo template-ka loona soo geliyo boosti qoraal fiican loogu qoro. casharkeena intaas ayuu ku kooban yahay. ha ilaawina channelka subscribe like saartaan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi